halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan waa subax isniina 13 bisha abriil sanada 2020. arrimahan barnaamijka saaka idinkugu haynana waxaa ka mid ah tirada dadka xanuunka coronavirus ugu dhintay Talyaaniga iyo Faransiiska oo hoos u dhacday. taliyaha booliska Soomaaliya oo laga bilaabo Arbacada bandow habeenkii uu ku soo rogay magaalada Muqdisho. sababtu maxay tahay? sababta bandowga looga bilaabay Muqdisho waa inay tahay magaalada ugu dad badan dalka lagana diiwaan geliyay xaaladaha dhimashada iyo dadka uu xanuunku soo ridanayo. xaaladaha magaalooyinka kale waa lala soconayaa waana la qiimeynayaa. qaar ka mid ah shacabka ku nool tuulooyinka ku xiran ismaamulka magaalada Diridhaba oo sheegay in maamulka magaaladaasi uu barakicinayo arrintaas oo gaashaanka u daruuray ismaamulka magaaladaas iyo coronavirus oo saameeyay guurkii Soomaalida ay qurbaha ku dhigan jireen. arooskayga waxaan invite gareeyay ilaa adiga 400 qof. arrintan marka imaaday way dhici weysay 5 qof bay noqotay in aroos ku dhigana guriga dhexdiisa. 5 qofna waxay noqotay aniga iyo xaajigayga iyo labadii malxiis iyo ninka cameramanka ah. qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Xasan Cali Geela anigoo Aftaax Ibraahim Cagaarna in la socodsiinaya balse marka hore barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Axmed Badar. maasanid Cabdifataax. wadamada soo saara shidaalka ayaa waxay ku heshiiyeen in la dhimo wax soo saarka dhanka shidaalka taasi oo ah dadaal lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka dhanka qiimaha shidaalka oo ka dhaxeeya Sacuudiga iyo Ruushka. wadamada ururka ay ku bohobeen dalalka soo saara shidaalka OPEC iyo waliba dalalka kale ee shidaalka dhoofiya ayaa waxay dhimayaan 10 milyan oo barmiil maalinkii. tan iyo horaantii bishii Maarch qiimaha shidaalka ayaa waxa ku yimid hoos u dhac ama hoos u dhici ugu weynaa muddo ku dhow 20 sano. waxaana arrintan loo aanayay cudurka corona. heshiiskan ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay hogaamiyaasha caalamka. labada dal ee Yurub ee sida baan u saameeyay fayraska corona ee kala ah Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa waxay sheegeen in hoos u dhac ku yimid tirada u dhimanaysa cudurka COVID-19. tiradii ugu dambeysay ee Talyaaniga ay ku dhimatay ayaa muujinaysa in dalkaasi ay ku dhinteen 24 saac ugu dambeeyay 431 qof taasi oo tiradii ugu hooseysay 3 toddobaad ee ugu dambeysay. xukuumadda Talyaaniga ayaa waxay sheegtay in dhibaatada cudurka imika u muuqato in hoos u soo dhacayo. Faransiiska ayaa waxaa sidoo kale hoos u dhac ku yimid tirada dhimashada iyo tirada dadka u baahan qalabka qofka ka caawiya nafsashada. dalka Spain tirada ayaa wali sareysa waxaana ku dhimatay 24 saac ugu dambeysay ka badan 600 oo qof. xaaladda caafimaad ee ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa ka soo kabsaday fayraska COVID-19 kadib markii uu maalmo isbitaalka ku jiray. dhakhaatiirta ayaa waxa ay amreen in uu nasto isla markaana lama filayo in shaqada uu ku soo laamo muddo toddobaadyo ah. muuqaal fariin ah oo Mr Johnson soo dhigay baraha bulshada ayaa waxa uu sheegay in aysan su'aali ka taagnayn in dhakhaatiirta ay naftiisa badbaadiyeen. axadii dalka Britain ayaa noqday dalkii shanaad ee diiwaangeliya dhimashada in ka badan 10,000 oo qof. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu diiday inuu aqbalo iscasilaadda wasiirka arrimaha gudaha taasi oo la xiriirtay qaabkii loo dhaqangeliyay 2 maalmood oo xayiraad lagu soo rogay dalkaasi qayb ka mid ah. jimcihii Turkiga waxa ay ku dhawaaqeen 2 maalmood oo dhaqdhaqaaqyada la xadidayo si loo xakameeyo faafidda cudurka corona iyadoo la bixiyay 2 saacadood oo ogeysiis oo shacabka lagu wargelinayo ka hor dhaqangelinta. ku dhawaaqidani xanibaadda ayaa waxaa ka dhashay jahawareer iyada oo dadka ay u kala carareen goobaha cunooyinka lagu iibiyo iyo cabitaanada. Masasoil ayaa markii hore waxa uu sheegay in bandowgani uu yahay go'aan uu gaaray madaxweynaha balse markii dambe waxa uu qaatay mas'uuliyadda dhibaatada ka dhalatay. ugu dambeynna saraakiisha dalka Chile waxay ugu baaqeen xukuumadda Bolivia in ay furto xuduudda labada dal asi markaasi 700 oo qof oo muwaadiniin u dhashay Bolivia oo ku xayiran xuduudda ay u soo galaan dalkaasi. muhaajiriinta ayaa seexanaya banaanada isla markaana la daala dhacayay sida ay cunno u heli lahaayeen. Cabdifataax aad baad u mahadsantahay Axmed Badar ayuu kaasi wararka caalamka la socodsiinayay dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka.
aanu ku bilownay sida aad warkaba ku maqlayseen laba dal oo ka mid a dalalka ku yaal qaaradda Yurub ee Talyaaniga iyo Faransiiska oo ka mid a dalalka uu sida baan u saameeyay cudurkan coronavirus ayaa haatan waxay ku waramayaan in hoos u dhacday tirada dhimashada maalin kasta cudurkaasi dalalkaasi ugu dhiman jirtay wadanka Talyaaniga haddaanu eegno 431 qof ayaa cudurkaasi 24 saacadood la soo dhaafay ugu dhimatay taas oo ah tii ugu yareed muddo 3 toddobaad ah ee dhanka kalena wadanka Shiinaha ayaa diiwaan geliyay tiradii ugu badneed ee cudurrada kiisaska cusub ee cudurkaasi coronavirus markii ugu dambeysay shidaalkana qiimihiisa hoose ayaa loo dhigayaa faafahinta wararkaasi oo isku xiran waxaa inoo haya xasan cali geelle oo haatan stuudiga igula soo biray xasan bal talyaaniga ku bilow dowladaha faransiiska talyaaniga iyo spain inta waxay sheegayaan in tiradii cudurkan uu soo ridanayay haatan si yaraanayaan hase yeeshee si gaar haddii aan u fiirno wadamada talyaaniga iyo spain waxa ay sheegayaan in wadamadana ay bilaabayaan in ay khafiifiyaan xayiraadihii ay dadka hore ugu soo rogeen ee dhanka dhaqdhaqaaqa ah waxaana la sheegayaa in uu aad u yaryahay marka la fiiriyo magaalada Rome iyo Madrid iyo guud ahaan labadaasi wadanba in dadka cudurkan haatan ku dhacayo ay soo yaraanayaan tir ahaan ay soo yaraanayso Spain marka la fiiriyo oo kumanaan qof oo ah shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha iyo adeegyada kale ayaa loo ogolaanaya in ay shaqooyinkoodii dib ugu laabtaan balse ay tahay in ay u dhaqmaan ama qaataan awaamirta dhanka caafimaadka ee la siinayo hase yeeshee qaybaha kale ee shacabka ayaa iyagu guryahooda kusii sugnaan doona dowladda Talyaaniga waxa ay sheegtay inay dib u furayso ganacsiyada qaar kuwa muhiimka ah dhaqaalaha maadaama xayiraadaha saarnaa wadankaasi ay dhibaato u keeneen dhaqaalaha dalkaasi dalka Shiinaha waxaa la sheegayaa in dad cusub uu soo ritay cudurkaasi marka loo fiiriyo sidii ay hore u ahayd oo 6 usbuuc oo la soo dhaafay tiradu haatan ay sii kordhaysaa 108 qof oo cusub oo horle ayuu cudurkan ku dhacay ama laga helay shalay oo xad ahayd 98 ka mid ah waa dad dibadda ka yimid taa oo keenaysa cabsi ah in dadka dibadda ka imaanaya ay cudurkan mar labaad dalkaasi keenaan waxaa jirta Cabdi Fataax in wadamada soo saara shidaalka ama saliidda ciriinka ee caalamku ay ku heshiiyeen in la dhimo wax soo saarkooda si loo joojiyo colaadda ka dhex dhalatay wadamada Ruushka iyo Sacuudi Carabiya oo iyaga arrintan bilaabay waxayna dib u dhigayaan ilaa iyo in tiro badan si loo xakameeyo sicirka shidaalka ee cirka isku sii shareeray hoos u socda aad baad u mahadsantahay xasan cali geelay oo kaasi ahaa oo faafahinta warkaasi nala socodsiinaya markanse magaalada muqdisho laga bilaabo arbacada soo aadan waxaa ka dhaqangalaya bandow habeenkii magaaladaasi lagu soo rogayo go'aankan waxa uu ku dhawaaqay baa leeyahay taliyaha booliska Soomaaliya Generaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar kaas oo lagu leeyahay buu yiri in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19 Generaal Xijaar muusan sheegin waqtiga bandowgaas la qaadi doono hase yeeshee waxa uu sheegay in si dhow ay ula socon doonaan xaaladda xanuunkaasi sidoo kalena ay isha ku hayn doonaan magaalooyinka kale ee dalka haddaba faafahinta warkan iyo xogtii ugu dambeysay ee xanuunkaasi coronavirus waxaan weydiiyey waryahayaga magaalada muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan cabdi fataaxow taliyaha booliska Soomaaliya waxa uu sheegay in bandowgu uu saameynayo isu socodka dadka iyo gaadiidka ganacsiga marka laga reebo dukaamada cunnada qalalan laga iibsado iyo xarumaha caafimaadka sida farmashiyaasha iyo isbitaalada taliyaha boolisku waxa uu sheegay in qiimeynta joogtada ah ee lagu sameynayo xaaladda faafitaanka cudurka COVID-19 lagu go'aamin doono wax ka beddelka bandowga jananku waxa kale oo codsaday in ay dadweynuhu u hoggaansamaan bandowga si dadka looga badbaadiyo cudurkan khatarta ah taliyuhu waxa uu sheegay in ciidamada amniga la faray in dadka xanuunsanaya ee xaaladaha degdega ah la soo gudboonaadaan ay u fududeeyaan gaaritaanka goobaha caafimaadka si ay u helaan daryeelka ay u baahan yihiin cabdi xasan maxamed xijaar taliyaha boolisku markii uu arrintan ka hadlayay waxa uu yidhi si looga hortago fiditaanka cudurkan khatarta ah loogana badbaadiyo ummadda Soomaaliyeed dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku wargelinaysaa shacabka Soomaaliyeed go'aanada soo socda in laga bilaabo arbacada soo socota Abriil 15keeda 2020 in magaalada Muqdisho lagu soo rogayo bandow ka bilaabanaya 8 fiidnimo kuna eg 5 subaxnimo sababta bandowga looga bilaabay Muqdisho waa inay tahay magaalada ugu
dad badan dalka lagana diiwaan geliyey xaaladaha dhimashada iyo dadka uu xanuunku soo ridanayo. Xaaladaha magaalooyinka kale waa lala soconayaa waana la qiimeynayaa. 2 bandowgu wuxuu saameynayaa dhammaan ganacsiga, isu socodka gaadiidka iyo dad marka laga reebo dukaanada cunada qalalan laga iibsado iyo xarumaha caafimaadka sida farmashiyayaasha iyo isbitaalada. 3 waxaa qiimeyn joogto ah lagu samayn doonaa xaaladda faafitaanka cudurka, taas ayaana xadidi doonta muddada uu socon doono bandowgu iyo haddii ay tahay in magaalooyin kale lagu soo daro. kaasi waxa uu ahaa jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar, taliyaha booliska waddanka Soomaaliya. marka Ibraahimow, bal ka waran dareenka dadweynaha, ma la sii filayay bandowgan in lagu soo rogi doono magaalada xilliga habeenkii? cagayare inkastoo bandowgani uu soo baxay xalay, haddana waqtigu uu yahay 8 fiidnimo ilaa 5 aroornimo, waxaad moodaa dadka markii horeba intaa socon jiray in ay aad u yartahay. marka dadweynuhu waxaa muuqata inay indhawaalaba sugayeen in go'aamo dheeraada ay dowladdu qaadato, laakiin mararka qaarkood waxaa laga hadlayay bandow intaa ka badan. laakiin markaad aragto waqtiga oo lagu saleeyey hadba dadka xoogsatada ah oo dadka magaaladan ay u badan yihiin in waqtiga inta badan guryahooda aadi jireen bandowga laga dhigay, marka dabcan waxaad arki kartaa in dadweynuhu aanay dood weyn ka qabin arrintaas. bandowgan wuxuu imanayaa xilli dalka uu ka jiro xanuunkan coronavirus. marka wararkii ugu dambeeyey maxaanu ka haynaa cudurkan coronavirus? wararka ugu dambeeyey cagayarow la xiriira cudurka covid-19 xalay wasaaradda caafimaadku waxay soo saartay kiisas hor leh oo laga helay cudurka covid-19. wasiirka wasaaradda caafimaadka Fawziya Abikar Nuur waxay sheegtay in 4 qof oo cusub laga helay cudurka covid-19, taasoo tirada guud ee cudurka laga helay ka dhigaysa 25. waxaad ka warqabtaa in shalay gelinkii dambe qofkii labaad ee cudurkaasi u dhintay magaalada Muqdisho in la xaqiijiyey 2 qof hadda way dhimatay, 2 qofna way ka kacday. tirada guud ee hadda cudurka uu haya waxay noqonaysaa 21. waxaa laga qaaday baaritaano in ka badan 100 qof. marka dabcan waxaad arkaysaa in weli faafitaanka cudurka uu ka dhex socdo bulshada gudaheeda. wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar waxa ay ku boorisay bulshada in ay qaataan talooyinka caafimaadka ee ka imaanaya wasaaradda iyo dhakhaatiirta. aad ay ugu mahadsan yahay Ibraahim Maxamed Aadan, wariyahayaga magaalada Muqdisho ayuu kaasi ahaa oo gurud ii waramayay. dhanka kale ee xirfadlayaasha caafimaadka Soomaaliya ee ku howlan la tacaalidda xanuunka safmarka ee coronavirus ayaa la sheegayaa inay halis ugu jiraan inay qaadaan xanuunkaasi maadaama aysan qalab ku filan oo cudurka la isaga ilaaliyo haysan. maalmihii lasoo dhaafay waxaa cudurkaasi uu haleelay dhowr dhakhtar oo qaarkood ay dabiibayeen bukaano xanuunka qaba. haddaba Dr. Ibraahim Guuleed oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Muqdisho ayaanu ka wareysanay khatarta dhakhaatiirta ay ugu jiraan inay qaadaan xanuunka iyo weliba siday u helaan waxyaabaha cudurkaasi ay isaga ilaaliyaan. waxa uu waramay wariyahayaga Cabdirasaaq Xaaji Catoosh. marka laga hadlayo dadka xirfadlayaasha caafimaadka ee adduunka waxaa la yidhaha waa dadka ugu horeeya ee ku jira safka hore dagaalka xanuunkan. marka laga hadlayo dad badan uuna saameeyey adduunka, waddankeena Soomaaliya dadka laga helay xanuunka qayb kamida ama 3 qaybood, qayb kamidana waa dad caafimaad ka shaqeynaya ama dhakhaatiir ah. taa marka waxay ku tusinaysaa in dadka ugu nugul ay yihiin ama xanuunka ku dhici karo, maadaama ay yihiin dadka la macaamilaya ama daaweynaya ama u adeegaya dadka xanuunka qaba ama looga shakisan yahay. marka waa dad u nugul mar walba inuu xanuunka ku dhaco. marka shaqaalahaas caafimaadka ma helaan agabkii ay isaga ilaalin lahaayeen cudurkan? Soomaaliya markaan ka hadlo maya, waxa waaye dadka shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya isbitaalada, kuwa gaarka loo leeyahay kuwa dowladaba, dhammaan ma haystaan wax ay uga hortagaan ama ay isku ilaaliyaan markii la macaamilayaan ama daaweynayaan qof qaba xanuunka ama looga shakisan yahay. wax ay haystaan ma lahan, khatarayna ku jiraan inay xanuunka qaadaan. qalabkaas waxaa kamid a qalab la gashto oo PPE loo yaqaano qofka difaacaya, maski loogu talagalayo oo N95 loo yaqaano oo gaar ah, baha loogu talagalay wejiga in lagu xirto. waxaasoo dhan wax ay haystaan ama mataqaanaa ay heli karaan ma jiraan. Dr. Ibraahim Guuleed, shaqaalaha caafimaadka ee xirfadlayaasha ee hadda xanuunkan uu ku dhacay qaabkay u qaadeen, yayse ka qaadeen? shaqaalaha caafimaadka ee hadda xanuunku ku dhacay ilaa 8 qof ay gaarayaan inta la hubo, la baaray oo la arkay. inta badan waxay ka qaadeen qof xanuun qaba oo ay la macaamileen ama ay daaweynayeen. qof baa wuxuu ka qaaday kasoo qaada qof xanuunkii qaba oo daaweynayo, kadibna bulshadii kale ama dhakhaatiirtii kale soo dhex galay, isagana wuxuu qasbay inuu dhakhaatiirtii kale xanuunka sidii ugu daarto ama ay ku faafaan. marka inta badan asalka waxay tahay inay ka qaadeen qof bukaana ay daaweynayeen oo xanuunka qaba ama ay la macaamileen.
maxaa la gudban marka hadda xirfadlayaashan maxay tahay inay sameeyaan maadaama khatartii ay sii ziyaadayso wallaahi horta khatar weynay ku jiraan xirfadlayaasha caafimaadka haddana bukaankiina xaq uu leeyahay in loo shaqeeyo oo mar walba qof bukaan oo xanuunsan lama dayaci karo horta waxaa mar walba muhiima taxadar qofku inuu ku jiro inuu ilaaliyo markuu qofka la macaamilayo waxyaabaha kahortaga sida inuu gloves xirto sida inuu maskiga xirto laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay xirfadlayaasha caafimaadka waxay u baahan yihiin qalabkii looga hortegi lahaa taana waxaa isleeyahay wax suuqa laga soo gadan kara maaha wax la heli kara maaha waa wax dowladda ku xiran tahay waa wax ay dowladda hayso marka dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqi lahaa inay si adag u tala gasho inay badbaadiso xirfadlayaasha caafimaadka sababtoo haddii xirfadlayaasha caafimaadka ay ayaga xanuunsadaan ama xanuunka ay qaadaan ma jiri doonto in dadka xanuunka qaba loo shaqeeyo ama ay usii shaqeeyaan waa tahay kaasi waxa uu ahaa Dr. Ibrahim Guuleed oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Muqdisho oo u warramay waryahayga Cabdirasaaq Xaaji Catoosh bal markana aan fursad siiyo qaar ka mid ah dhageystayaasha Facebook oo ra'yigooda kaga soo dhibta halkaasi warbixinta ku saabsaneyd bandowga Arbacada laga bilaabo lagu soo rogay magaalada Muqdisho Falastiin Khaliif Yuusuf Biifeeye oo ka soo qortay magaalada Muqdisho waxay leedahay taliyaha booliska Soomaaliya ee sheegay in laga bilaabo Arbacada ee magaalada Muqdisho bandow habeenkii ay ku soo rogayaan waan bogaadinayaa maxaa yeelay waa laga maarmaan in la qaado tallaabo kasta oo lagu hortagayo cudurka coronavirus in uu ku sii faafo gudaha Sadiiq Aadan Xidig oo cabudo ka soo qorays waxa uu leeyahay hadal ka soo yaray taliyaha booliska Soomaaliya ee ah in magaalada Muqdisho bandow habeenkii lagu soo rogayo runtii waxaan oran karaa waa hadal aan loo meeldayin marka la eego xaaladda aan dadka aad ka qalafsan ay ku sugan yihiin dadka reer Muqdisho waxaan qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC ee Facebook BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. saacaduna haatan waxay tilmaamaysaa 7:16 iyo 30 ilbiriqs waqtiga bariga Afrika wararka coronavirus waynu u soo laaban doonaaye markan dowladda Jaad ayaa waxa ay sheegtay in militarigeeda uu ka sii qayb qaadan doono howlgalka militari ee wadajirka ah ee lagu soo horjeedo ururada gobolkaasi ka dagaalama howlgalkaas oo ay ku jiraan ciidamada midowga qaramada midoobay ee nabad ilaalinta Mali bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa imanaya 2 maalmood kadib markii madaxweynaha dalkaas Idris Deby uu u muuqanayay in uu soo jeedinayay in uu la bixi doono ciidamadiisa markii uu sheegay in ciidamada Jaad aanan loo daadgurayn doonin meel ka baxsan xuduudaha dalka tifitiraha wararka BBC-da Afrika Will Ross ayaa faafahinta warkan inoo soo diray waa kan Xasan Cali Geelo soo jeedinaya xaqiijinta ah in ciidamada dalkaasi Jaad ay qayb ka sii ahaan doonaan saddexda howlgal ee ciidamada caalamiga ah ay ka qayb qaadanayaan ayaa ah war wanaagsan oo aad looga soo dhaweynayo gobolkaas oo ay ka jirto dhibaato aad u weyn ciidamada dalkaasi Jaad ayaa ah kuwa leh khibrad isla markaana aad loogu baahan yahay ka hortagga halista sii kordhaysa ee kooxaha mintidiinta islaamiga ah madaxweyne Idris Deby ayaa mar sii horeysay bidhaamiyey suurtagalnimada in ciidamadiisa ka howlgala meelaha ka baxsan dalkaasi dib loo soo celin doono hase yeeshee waxa uu hadlayay kadib markii mintidiinta kooxda Boko Haram ay ciidamadiisa ku qaadeen weerarkii ugu dhimashada badnaa ka oo hal maalin oo kaliya ay ku dileen ku dhawaad 100 askari dowladda Jaad ayaa waxa ay sheegaysaa in weerarkaasi ay ka falcelisay isla markaana ay dishay mintidiin aad u tiro badan hase yeeshee waxa suurtagal ah in hanjabaadaasi madaxweyne Idris Deby ahayd in ciidamadiisu kala soo bixi doono howlgallada dibadda ay ahayd mid uu ku guubaabinayay wadamada kale in ay diyaar garoobaan isla markaana ay qaadaan tallaabooyin kale oo dheeraad ah oo looga hortagayo halista kooxaha islaamiyiinta ah xasan waa u mahadsan yahay markanse qaar ka mid ah shacabka ku nool tuulooyinka ku xeeran ismaamulka magaalada Diridhaba ee waddanka Itoobiya ayaa sheegay in maamulka magaalada uu barakicinayo oo dhulkii ay qarniyo deganayeen xog uga saarayo qaar ka mid ah odayaasha BBC-da la soo xiriiray ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida loo adeegsaday ilaa iyo 10 qof oo dhaawacyo soo gaareen ay jiifaan guryahooda dhanka kale waxay odayaashu sheegeen in ismaamulka magaaladaasi ay u gudbiyeen cabashadooda hase yeeshee aanay waxba ka qaban oo ay waxa ku eedeynayaanba in ay qayb ka yihiin arrintaas oo iyagu soo maleegeen waa kuwan qaar ka mid a odayaasha BBC-da la soo xiriiray waxaan ahay Barkhad Cabdilaahi Nuur waxaan joogaa magaalada Diridhaba dabadlaha Booran qaybta kale guudle la yiraahdo waxaan ka cabanaynaa anagu markii hore dhulkii aan lahayn waa la naga wada qaaday industry baa la siinayaa baa la yiri
waxaa la waxna laga siiyo ciidana ma jirto iyo wax ka xun baa nagu dhacday iminka waktigan la joogo intii yareydee noo halday een fadhinay waxaa la yidhi waxaa laga dhigi magaalada bilicdeeda laga dhigay ma dhisi kartiin baa horeena loo yidhi oo waxaan dul joognaba iminkana tu ka daran baa naymato ciidan makalakaliyaha ayaa lana soo duldhigay ciidanka makalakaliyaha cid alla ciidanka ka dacwoonaan karana weyne habeen weliba baa lana dul yimid annaga waxna noo sheegayna ma jiro haddii dawladda ma imato arrin noo sheegto arrintaa waan ka dhaqaaqina iminka ka warbixin lahayn annagu laakiin waxaan leenahay iminka dhowr iyo toban qof baa wala dhaawacoma iminka xaafadooda kasoo bixin oo ciidankii makalakaliyaha sidaa u garaaceen oy wax kasta kala daalin kolkaanu sheegnay ismaamulkii diri dhabana way naga aamuseen oo waxay noo qabteenna ma dhahin iminka beerta waxay iga dhex jirta cagafkii dhulka jeexaya baa ku dhex jira ciidan baa habeen dharaarna garaaca kolka waxaan leenahay dawladda ismaamulka diri dhaba ka bilada xisbiga soomaalida iyo dawladda kililka iyo dawladda federaalka iyo cid alla ciday qusayso soomaaliya oo dhanba waxaan leenahay dhibaatada xaqiiqa lanagu hayaa lanoo soo gudimado alla noo arkaan leena magacayga waxaa la idhahdaa cabdi muumin aadam waxaan kamid ahay shacabka tiridhaba agagaarkeeda degan qaaf ahaan qabalayga booran mandarka industry la yidhahdaan ka deganahay meesha 4 qarni baan ku noolahay dhibka maanta na heshiiyey jimiisigina naga helin nagu dhacday waxa weeye markii hore meesha warshadaha laga samaystay 160 hektaar baa bilaa xaqna lagaga xaaray dadkii meesha galayena oo barakacay wax Jabuuti ku farxaday iyo wax gaajo u dhimanayo wax silixda meelaha annagana dhex jiljiisaba waa leeyahay kadib waana lagu laabmay haddana waxaana laga xaadishanayay 60 hektaar dadkii laga xaaray baan ka midnahay ciidankaasi herer baa nalaga xukumaa buu yidhahdaa xarunta 13aad ciidamada إن إسمام الكثير دبنا وسوق المكان إلى هير قبلية إلى هير كوسل مجرد بحوجان قبنا عيدا بمس هير النجار قادنا يا مكالية نايبولية أبودي يتوبي وده بيسويان نادي عروس الدبادو كلا جايا وريها يجوا يجدبنا يا أفر نلا ظهرنا اللي بركعي إدنا بركعنا يساي إيش بيجا سوق داوية إذا ما إذكر أنا لو سجل عن الرأسن إن كنا مامو كسلة كان سنا كان الرأسن ما بالي كان الرأسن مركب بلا تحوجان قبنا haddaba cabashadaas odayaashaasi qabanaya waxaanu hor dhignay ismaamulka diridhaba si ay arrintaasi uga jawaabaan waxaan la xiriirnay maayirka magaaladaas axmed buux oo u warramay waryahayaga cabdiraxmaan xaaji cadow wallaahi wax xoog laga kicina ma jirto hadalkaasi waa been weeyaan dhulkan meel sali ku xidhmeeyeen oo 7 sanood horteed dawladdu ay investmentka u diyaarisay marka dadkii meeshaas deganaa maqti baa la siiyey oo jagooyin kalena waa la siiyey oo meel kale la dejiyey marka investment baa loogu talagalay meesha dad badan oo investorra ayaa la siiyey dhulkii si ay u maalgeliyaan dhaqaalaha magaaladana kor loogu qaado meesha magaalada dirdhabo oo istaraatiiji ah oo noqon doonto industrial capital Ethiopia noqon doonto markaas qorshahaas ayay ka mid tahay marka meeshii dadka investmentka la siiyey ayay buuq iyo rabshad meeshaas ka rideen dadkaas waa meel bannaan oo silib ku xidhan oo dawladdu in badan gacanta ay ku haysay oo dadkii meesha lahaana compensation la siiyey oo meel kale la dejiyey shacabka cabanaya waxay sheegeen in dhulkani uu dhuldaaqsimeed u yahay dhulbeereedna uu ahaa 4 qarni ay deganayeen maantana ciidamo loo adeegsaday xoog looga kicinayo aniga runta kuu sheegay meesha silig bay ku xidhnayd cidba ma deganin muddo badan waxay dhawarka ku haysaan ay tahay industrial zonka magaalada oo warshado badan laga sameeyey marka wax aniga kuu sheegay dadkaas inaa xuquuqdoodii la siiyey waa hore oo xujado la siiyey meel kale la dejiyey soomaalida waxay yidhaahdaa ku qabso ku qadi mayside wax aynkaasay wadaan nimankaas bilaa wax ka heshaan bay leeyihin meesha buuq ka ridaan marka qofkii investmentkee la gorgortamani kale inta haddaad isiisay meesha waan kuu dayn dadkan iyaku municipality maaha marka waa dad maxay si sharci darro ah rabshad meesha ka wada marka cidii rabshad wadana dawladdu tallaabo ka qaaday laakiin shacabku waxay sheegayaan in ciidamo hubaysan oo kuwa gaashaandhigga loo adeegsaday isla markaana shacabka dhibaato badan ay ku hayaan dad badan ay ka dhaawaceen ciidamaduna aad idinka shacabka u adeegsateen waxa weeyaan ciidamo harar laga keenay military baa soo galay leeyahay waxa waa been waxa weeyaan police stationka xaafada ku yaalo ayaan amarnay iyadoo la xajijibinay meesha investmentka laga samaynayo marka dadkaas nabadgelyo si loo ilaaliyo amba meelaha dhismayaasha ay wadaan si loo ilaaliyo ayaan boolis u amarnay ee wax kaloo ciidan oo la geeyo meesha dad dilaya ma jiro adigu waxaad sheegtay in shacabka 7 sano ka hor lagala hadlay oo markaasi la siiyey xaqi ay lahaayeen in magdhowgii dhulkaasi uu mudnaa laakiin shacabku waxay leeyihiin cid nagala hadash iyo cid nagala soo xiriirtay midna ma jirto waxa weeyaan horta dhul bannaan oo dhanba dawladda leh laakiin waxaa jirto meesha dhismo ka dhisan yahay amba wax compensation in la siiyo inta dawladda dhulka daaqana compensation ay ku bixisaa marka dadka Soomaalida inta badan haddii aan eegna dhankan gobolkeeda amba dirrabe dhulka bannaanka daaq ayay yidhahdeen beer baan ku lahaa in reality laakiin beer ma jirtay meesha waa dhul daaq loogu talagalay marka compensation ayuu iska leeyahay dhulka daaqu compensationkii way qaateen way saxeexeen saxeexyadoodii waan haynaa magacdoodii waan haynaa xitaa xujaday qaateenna waan haynaa
marka waxaasoo markhaatiyaan haynaa wax maxeeday laga baxbaxsan kara maaha oo laiska qaylqayliyana ma noqonayso markaas hadalkaas waxba kama jiraan kuleeyahay meeshuna silig bay ku xidhan tahay haddii dad kaloo niutrad waad weydiisay waad arki kari lahayd waa tahay kaasi waxa uu ahaa maayirka ismaamulka magaalada diridhaba axmed buux u warramay waryahayga cabdiraxmaan xaaji cadow bal wararkii coronavirus aanu ku laaban dhibaatada caalamka u gaarsiiya dhaqaalaha iyo weliba nafeed waxaa kaaga daran baa laleeyahay dhibaatada kale ee dhanka bulshada u gaarsiiya sida guurka oo kale oo dad badan oo lacago badan ku bixin jiray guurka ayaa arrintaasi saameeyay soomaalida ayaa ka mid a qurbaha ku nool warbixin cajiiba oo umurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya ibraahim cumar baafo waa xaflad aroos oo ka duwan kuwii looga bartay magaalada melbourne ee dalkan australia arooskayga waxaan invite gareeyey ilaa adiga 400 qof waa sucaad xasan iyo maxamed yuusuf oo arooskoodu ay ka soo qayb galeen 5 qof oo keliya marka 400 qof arrintan marka imaaday way dhici weysay marka dawladda waxay nagu samaysay inay xayiraan ay dhahaan 5 qof ka badan aroos ma dhigan karto sidaa awgeeda anigana aan u joojiyey waa gurigooda halka ay xafladdu ka dhacaysa sucaad waxa ay qorshaha arooskeedu diyaarisay bishii janaayo horaanteeda iyadoo soo karaysay hoolka aroosyada xafladduna ay ahayd inay dhacdo 2 bishan abriil ee aynu ku jirno laakiin cudurka coronavirus iyo awaamirta dawladdu ayaa baajiyey habeenkoodii farxadda ha yeeshee iyadu uma aysan hakinin in ay dib u dhigtaan arooskooda 5 qof bay noqotay in aroos ku dhigana guriga dhexdiisa 5 qofna waxay noqotay aniga iyo xaajigeyga iyo labada malxiis iyo ninka cameramanka ah dhageystayaasha BBC-da u sharax bal qaabka arooskaaga uu guriga ugu dhacay dadku waxay yaqaaneen in aroosi baryahan dambe meel badan la sugu yimaado oo intaas qof timaado la mashxaradeeyo muusiga la shido fanaaniin la keeno howl badan baa dhici jirta bal hadda 5 qof qaabka aad guriga ugu dhigateen sidii loo dhigan jirna waa u dhigan inkastoo qarash noo baaqday qaabkana waxaan ahayn adii cashaan samaysana casho sharaf 5 qof aan ka qayb galnay qof kaloo lixaad xitaa ma jirin 5 qof ayaa sida aroos uu dhici jiray u dhiganay waxa waaye suudkina wuu xirtay xaajigeyga anigana waan xirtay taashkeyga 2 malxiis aan soo kaxaysanay oo malxiis isaga dhinaciisa ka socdo iyo malxiisad ani dhinacayga ka socoto iyo cameramanki waxaan shidanay sameecadihii heesihii wixii oo dhan toortadii waan jarnay keegii marka suu aroos u dhici jira u dhiganay walow aanan haysanin dad badan oo ka soo qaybgalayaal ah taasaa muhiimadda ahayd oo naga maqneed maadaama arooskii ugu horreeyey uu ahaa waxa ay ka niya jabtay inay ka soo qaybgeli waayaan asxaabteeda iyo eheladeeda oo ku kala nool waqooyiga Ameerika iyo qaaradda Yurub waxaa waaye dhinac markii laga fiiriyo arooska wuxuu noqday si yara muruga leh oo asxaabtii iyo dadkii iyo familkii ugu talagalay kamay soo qaybgelin dhinac markii laga fiiriyana waxaa waaye xoogaha qarashkii waa ii baaqday dad badan oo familiga ah oo asxaabta oo tigidyo u goonaa oo dibadaha dhinacan Yurub iga imaan lahaa ilaa Ameerika ilaa Canada ayagana waxaa waaye way baaqdeen dhanka kale waxaa u baaqatay lacag gaaraysa ilaa $20,000 oo arooskooda ku bixi lahaa qarashka hore oo waxaa la kariinaya hotel waxaa imaanaya ilaa adii 400 qof ka soo qayb galayso marka lacagteeda aad ay u badan tahay oo ilaa adii $20,000 ugu talagalay laakiin hadda waxaa naga baxday waxaa $1,000 dhaneen nikaaxa oo Soomaaliya ka dhacay $1,000 camal Soomaaliya loo diray anagana ilaa wax yar oo aan badnayn baan nagu filneed $20,000 ugu talagala way ii baaqatay muhiimadana waxaa waa inaan aroos aan dhigto arooskaygana saan rabo iigu dhacay inkastoo xoogaa yar oo familka iyo iga maqnaayeen haddana dhib ma lahan wax walba ku faraxsanaa aroos oo taariikhi uu noqonaya sucaad waxa ay fariin u haysaa gabdhaha kale ee qurbaha ku nool oo dib u dhiganaya aroosyadooda ilaa coronavirus uu baxo waxaan kula talinayaa maadaama ay rabaan inay aqal dhistaan ay guursadaan waxaan dhihi lahaa waxbana dib ha u dhigan inay guursada sideedoo kale igu dayda marka cudurkaana waqti uu baxayo lama ogo marka waxaa fiican inaa maxay ahayd meherkiin uu ka dhaco Soomaaliya idinkana gaabagaabeediina iska samaysataan saasa ani kula talin lahaa inay sameeyaan waa tahay warbixintaas cajiibka uu Australia ka soo diray Ibraahim Cumar Baafa ayaan kusoo gabagabeynaya idaacadii subaxnimo waxaynu balan hadduu ibaydmo 2 duhurnimo inta ka horeysa waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo